بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين waxaan si gacan furan kusoo dhaweynaynaa anagoo ah kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda Jamhuuriya taas oo ka kooban kuliyado fara badan oo la shan gaariya oo ay kamid tahay kuliyadda daaweynta qalliinka ama MBS-ka kuliyadda kalkaalisooyinka kuliyadda umulisooyinka kuliyadda shaybaarka ama medical laboratory science iyo kuliyadda fayadhowrka dadweynaha ee public health-ka taas oo ku hayno waxbarasho tayeysan oo ku dhisan curriculum ama manhaj tayo leh kaas oo ay dhigayaan macallimiin ayaguna si gaar ah tayeysan loo xushay uga soo gudbin doono maaragtay farsamo tayeysan oo ah sida multimedia iyo maaragtay animationska iyo waxyaalo practical ah shaybaar loo diyaariyay maado walba taas oo ay ardaydu practice ku sameeyaan maadada ay cilmiga ay baranayaan waxaa kale oo jaamacaddu u diyaarisay ardayda caafimaadka inay xilli hore ay tagaan internship clerkship ama isbitaalada ay tagaan sida nurseska iyo caafimaadka iyo public health kaba iyo shaybaarka ay tagaan xilli isbitaalada tagaan ay ku practice gareeyaan ama ku tababartaan si life ah ay ugu bartaan waxay kale jaamacaddu si gaar ah aan ugu tahay inay ardayda caafimaadka u sameyso hal sano oo internship ay ku wareegayaan maadooyinka waaweyn ay kamid tahay qalliinka caafimaadka guud hooyada dhallaanka caruurta kaasoo ay ku qaadanayaan mudooyin kusoo wareegayaan muddahaasna ay ku qaadanayaan kabacdina ay isu diyaarinayaan imtixaanka kama dambaysta ah imtixaankaas kama dambaysta ah waa imtixaan aad u tayeysan oo jaamacaddu si khaas ah ay uga duwan tahay jaamacadaha kale oo loo yaqaano final professional examination kaasoo oo qaab casri ah loo qaadayo oo faahfaahsan oo ay kamid tahay maaragtay OSCE iyo imtixaan oral ah iyo imtixaan kale oo written ah jaamacaddu waxay kala qabataa waxyaalo ka baxsan manhajkii oo ardayda aqoontooda ku tayeynayso ziyaada ah oo ay kamid tahay maaragtay basic surgical skills oo farsamada maaragtay qaabka qofka qalliinka loo sameeyo iyo lagu tababarayo ay kamid tahay advanced cardiac life support qofka maaragtay naftiisa halis gasho si lagu badbaadinayo iyo basic life support iyadana qofka maaragtay emergency-ga ah kuwaas oo ay ardayda loogu diyaarinayo inay meesha ay tagaan ay ku badbaadin karaan nafaha dadweynaha jaamacaddu waxay kala qabataa shirar caalami ah oo cilmi baariseed kaas oo lagu soo bandhigo cilmiga caafimaadka oo si loogu faa'iideeyo dadweynaha cilmi baarisida waddanka ka jira oo ay jaamacaddu qayb weyn ka qaadato iyo shirarka caalamiga ah oo jaamacadduna ay qayb ka tahay waxaan marka rajeynaynaa inaad ka faa'iideysan doontaan waxbarashada tayeysan ee jaamacadda Jamhuuriya ay idin hayso kusoo dhawaada jaamacadda Jamhuuriya